بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن شاء الله waxaan hore wadanaynaa software-kii waxaan qaadanaynaa insha Allah maanta project-kii ugu horeeyay qolkii yaraa aan ugu talagalnay marka hore inaan ka bilaabno ugu horeynta waxaan leenahay create new project kadib meeshaan aan furaynaa waxaan leenahay waxaan dooratay standard profile 19 kadib waxaan leedahay new aan leedahay mar kasta aad bilaabaysid ha ka hilmaamin inaad inta samaysid waxay ka saacidaysaa inay wax ciladan kugu imaanin ama waxay ka saacidaysaa inaad qaladaadka ama inay ahaado baalkaaga mid wax ka maqneen intaas in aad loo fahmaa rajaynaya okay marka ugu horeyso sidaan kuugu soo kaco shaqada ugu horeysa aad qabanaysid insha Allah ha ahaato inaad unit ka bedeshid ama unitkaaga saxatid option aad leedahay kadib waxaad taabanaysaa meesha ay ku qoran tahay project kadib waxaad sii tagaysaa work unit waxaad leedahay millimeter ma u baahnay waxaa nooga dhigtaa meter sidaas oo kale decimalkiisa laba nooga dhig also sidoo kale millimeter ha noo dhihina meter okay sidaas oo kale waxaan saxaynaa decimalka layout unitka waxaan ka dhigaynaa 2 decimal inoo nooga dhig okay marka hore waxaan unit ka soo bedelnay modelka oo waxaan dhahnay meter nooga dhig decimalkiisana waxaan dhahnay 2 nooga dhig layoutkana unitkiisa waxaan dhahnay meter nooga dhig sidoo kale decimalkiisana 2 nooga dhig intaas oo kaliya saxaysaa intaas in aad loo fahmay ayaan rajaynayaa kadib waxaa leedahay okay no intaas markaa soo saxdid stepka labaad saxisid wuxuu noqonaa storygaaga intaad ka dhiganaysid somehow dadka qaar waxaa arkaysaa storygooda hooy waa iska dhaafaan hadhowna cilad danbaa kusoo baxdo haddaad rabtid roofkaagii waxaaga inay is wada lahaadaan inay ahaadaan waxaaga wax standard ah wax qurux badan sidoo kalena fudud sidoo kale aanan cilad kuugu imaanin samey waxaan sameynayo ha ka gudbin point kasta aan sameeyay intaas aad loo fahmaa rajaynaya sidoo kale software-kan wuxuu u baahan yahay practice badan insha Allah aad jeclaan doono sababtoo ah waxa way views-kiisa ama qaabka u muuqanayo ayaa ah mid qurux badan waxaan leenahay marka anoo dhahdaa qaybta noo soo qaado okay waxaan dhahaa joogiisa meeqa waay joogiisa waxaan ka dhiganaynaa anaga 3 mitir iyo barok kadib waxaan leenahay okay noo dheh storygeen sidaas oo noogu soo saxmay okay shaqada kuwa aan soo bilaabanayna waa wall inaan soo qaadan wallkeena markuu sidaan u soo kaco meeshaan ay ku qoran tahay wall topkeena waxaa nooga dhigtaa no ling wax dhirar ma u baahno meeshiisa ha ii joogo marka intaas sameeyo kadib sidaas oo kale waxay dhahdaa basic ina qaybtan dooratid wallka ay ku qoran tahay structure base kadib thickness-kaaga ayaa kuu suurtagelina aslan wuxuu leeyahay 3 darbi oo leeyahay darbigan iyo darbi kale oo asina boundary-ga ah constant uu noqona kan muxuu ahaa sidaas oo kale qaybtan kale asigana waa darbiyo dhinacyada frame qurux badan leh waxyaalo kala duwan ku jiro aad ka baaran kartid intaas oo darbiyo kala duwan ku jiro marka adiga waxaad iska doorataa midka basic structure base-ka kadib thickness-kiisa waxay dhahdaa 0.2 inta rabno qolkaan sameynayno waa 0.2 adiga cabirkaaga 0.4 hadaa rabtid 0.4 taas u gelinaysaa arjikadka detail-ka saxaysaa marka hore kadibna wax qurux badan soo baxa okay intaas markaa sameeyo kadib waxaa leeyahay okay intaas markaa sameeyo ayaan soo dhaweysana waxaa leeyahay darbiyadu waa sii kala model duwan yihiin inta marka la sameynayo xagga gudihii markaa ka soo baxday inta imaanaysa markaa rabtid kan inaad bedeshidna kiligsi qabo riix markaa riixdid waxaa kuu suurtagelinaya inaad oo ku tuso mid straight ah ma leexdo iyo mid geometric ah oo leexanayo iyo mid rectangle leh intaas marka badana kana aad loox loogu sameeyo circles-ka dad u baahan tahayna waa kuwa okay qaybtan ii soo qaado waxaa leedahay click-iisi balaca sidaan igu dheeray meeqa ka rabtaa qol waxaan rabaa 7 mitir sidaan waa sidaana 3 mitir waa si qol dheer oo u noqdo qol fadhiga oo kale okay intaas waxaa leeyahay 7 mitir toos iigile okay midda kale u baahan in la fahmo cabirka aniga madow ayaa ii shaqeynaya qolka dhexaan hadda qabanaya laakiin haddii aan dhaho ii kala wareeji mujida baalkan hadda ii geysid gudaha minis cabirkii gudihiya ku darsamay seen ugu darsamin marka waxaa leeyahay kan gudahan u baahanay goonidiisa inaan u samaysto kan gudaha oo kaliya sidoo kalena waa inuu straight noqdaa
sidaasna hadduu khalqalooc ku jiro waa ka ujeeda marka straight nooga dhig waxaa dhahdaa 3 mitir bar noo dheh kadibna enter dheh kadibna toosi asaab ku tusi doona leen okay asaab ku hagi doona waa ka marka intaas markaa samayn 3D aan dhahno marka saan u aragno waxaan sameynaa waa kana wow intaas waa isla fahnaa rajayna sidoo kale 2D ga noogu noqo waxaa dhahdaa intaas markaa inoo samaysid kadib waxaa noo dhahdaa ilbaabadii iyo waxaan galaynaa marka ilbaabkan ku hormaraynaa sidoo inta u kala horeeyaan badanaa u kala marsiinaynaa insha Allah okay kadib waxaa noo dhahdaa wall ilbaabkiina inta wax tiro badanaa ku jiro okay ilbaaba tiro badan oo kala duwanaa ku jiro ilbaabka kan noo soo qaado thicknesskiisa 0.9 okay intaa furaynaa marka meesha markaa furno waxaa leenahay modelkeena oo doorataa modelka waxaa noo doorataa kan ba noo dooro sidaas oo kale kan qaado sidaas oo kale kan inta bedel meel kastaan bedelay waa inaa soo bedeshaa sidoo kale open line qaybtan saar kanna ka qaad sidaas oo kale waxaa samaysaa modelkaaga colorkaad ka dhiganaysid okay colorkaas waxaa noo dhahdaa black nooga dhig oo kale kanna waxaa noo dhigtaa galaxy blue nooga dhig kadib okay dheh ilbaabkii noo samey marka okay waxaan u baahanahay ilbaab inaa inta noogu samaysid sidoo kale mid kalena inaa inta noogu samaysid okay sidaas oo kale window aan aadaa settingkiisa double click aan ku furaa sidaas oo kale kan ii dooro kadib waxaa dhahdaa cabirkiisa wax iga bedel asiga 1.2 square nooga dhig balaca iyo jooga okay intaas markaa ii samaysid kadib waxaa leedahaa kan 1.5 iga dhig soo fur inta oo open line iga qaad open line ka means waxay cross u saaran crosskaas waa inaan ka qaadaa sidaas oo kale waxaa ii dhigtaa metal aluminum iga dhig daaqada sidaas oo kale galaxy blue nooga dhig waxaa dhahdaa kadib dhaxda mid ii dhig geeskan kalena okay madowgan in gees ina gudaha la geliyo iyo in banaanka la geliyo faa'iidadiisa insha Allah idan waa arkayna okay afarta dhinac daaqadan ka dhigna saan u aragno daaqada quruxdeeda okay intaas markaa sameey kadib waxa leeyahay roof hore isna markii ku xiji okay intaas markaa sameey roofkian soo galay roofku waxa leeyahay markii ugu horeyso jooga gurigeyga waa inuu ii noqdaa meeshan dadka badan way ka gudbaan meeshan ka bilaab jooga gurigeyga oo wallka aan ka dhigtay waa 3 mitir bar 3 mitir bar waa inaa ka dhigtaa sidoo kale qaybtan dooro kadib waxaa dhahdaa thicknesska iyadana 0.2 nooga dhig okay intaas markaa samaysid angalka roofkaagan waxaa ka dhigtaa 35 dad badan oo yaqaana meeshan aad u dhigtaa meesha si fiican loo fiirsado sidaas oo kale multigana ku naqano kadib waa inta banaanka soo baxayso oo roofkayga soo baxayso waxaan rabaa 0.4 oo kaliya okay 0.4 aan ka dhigay si u yaraato macna okay xagga rinjiga hore ugu bedelaa waxa leeyahay labadan ii fur kadib kan waxa ii doortaa qaybtan brown French brown ay ku qoran tahay okay kaasna woodkiisa sidiisa ha ahaado kadib waxa leeyahay roofka ki afarta dhinac biyo u shubaan raba hadda maxaa ii saaran ki labada dhinac biyo u shubaan inta riixa marka waa riixa waa hayna ilaa ay ka soo baxda kaas kadib waxa leeyahay kiiska ilaa kiiska ii saar marka sidaas oo noqon inta marka noqdo kadib waxa leeyahay waxaan u baahanahay slab aan u baahanahay okay slab markaan tago kadib waxa leeyahay qaybtan basic dooro 0.3 gi sidiisa ay ahaado insha Allah laakiin marka kale way ka dugnaan doontaa qaybta kore waxa iga dhigtaa berkiigan oo kale kadib waxa dhahdaa inta ilaa inta ay saar marka okay slabkayga waan saaray 3D aan dhahno marka saan wax war wow waa kana marka waxa soo baxay wax qurux badan baalka in banaanka la saaro waa kana frame-ku muxuu ka dhigay mid banaanka la siman haddii aad gudaha gelisidna waa ka ujeeda gudaha sidaas u kala intaasna iyada naftarkeeda in la fahmo rajeynaya okay hal mar waxaan baahnaa wareegga dhulka inaan sameeyo was inta iska dheerayna kadibna waxaan soo qaadanaa slabkila kadib waxa leeyahay slabka dhulka inuu galaan raba 7 cm ka dhig thicknesskiisa meesha dhulka galayna -0.3 ama -0.2 okay kadibna saddexda wada fur isku wada kaysi kadib waxa ii doorataa qaybta ay ku qoran tahay galaxy green kadib okay dheh inta ilaa inta ii saar soo noqdo ul fadhiyo sidoo kale wallkayga colorkiisa ii bedel wall dooro markay hadda way isku wada xiran yihiin hal kamid ah daan doorto kulli asaa ii wada doormay kadib control T aad leedahay si uu kan kugu soo baxo colorka xagiisa tagaysa marka model u yaqaan marka arjikadka marka la joogo colorka okay isku wada ay kaadaan dheh tookadan color waxa ii doorataa
blue light ii dooro blue light ii dooro okay aan dhahay kadibna 3D aan dhahno marka saan u aragno waa ka meesha maxaa soo baxay guri qurux badan waa ka intaas ayaan joodi doonaa cashirkeena insha allah cashirkii xigo insha allah toos waxaan u gali doonaa hal vilo oo dhammaystiran asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu